Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa Cabdiraxmaan Traveler. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir channelkana subscribe saar. Haddii aad hore noola joogto waa ku mahadsan tahay muuqaalka like saar. Maantay waxaan ka hadlaynaa mowduuc muhiim ah oo quseeya rukniga shanaad ee tiirarka islaamka kaasoo ah xajka. Waxa aan si gaar ah u eegaynaa annagoo isbarbardhig ku sameynayna qiimaha xajka ay bixiyaan xujayada Soomaalida ee Soomaaliya kasoo xajinaysa iyo xujayada kale ee dalalka caalamka. Sidoo kale waxaan eegaynaa khaladaadka laga galo dadka xujayada ee Soomaaliya kasoo xajiya ay ka galaan dadka xamalaadka ah ama xajka dadka soo dhoofiya. Sidoo kale waxaan eegaynaa sida lagu xallin karo khaladaadkaas. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa u qoondeysay sanadkan hadda aan ku jirno 5,206 xaaji dalka Soomaaliya, iyadoo ay ku wareejisay hay-adda ama wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. Wasaaraddaas oo iyadana ku wareejisa shatiyada dadka xajka la keenayo shirkado private ah oo dadka soo xajiya. Haddaba qiimaha ayaa aad u sareeya ay Soomaalidu bixiso marka aan isbarbardhig ku sameyno ilaa 6 wadan kale oo dad muslimiin ay kasoo xajiyaan. Sida halkan ka arkaysaan, qiimaha ay Soomaalidu bixiso ee xajka waa 6,000, intaas ka badanna way dhici kartaa in dadka laga qaado. Haddii aan fiirino wadamada Nigeria, Ethiopia, India, Pakistan, Sudan iyo Kenya, aad ayay nooga hooseeyaan lacagta ay bixiyaan. Sidoo kale waxaa jira in dadka lagula ballamo in loo qabanayo xaj packages ama service ama adeeg dhammaystiran oo ay ka kooban tahay xajka, fiisihii xajka. Sidoo kale waxaa ku jira adeega diyaaradii flightkii, waxaa ku jira housingkii ama qofku meesha uu degi lahaa, waxaa ugu jira caafimaadka health insurance-gii, cuntadii baa ku jirta. Sidoo kale waxaa ku jirta gaadiidka iyo safarka markuu qofku u kala safrayo, tusaale ahaan inta u dhaxaysa Kacbada iyo ilaa iyo Mina iyo Carafa intaba. Sidoo kale waxaa ku jirta in dadka la hago oo warbixin la siiyo maadaama dad badan oo luqadda aqoon ay ku jiraan oo u baahan in xagga diinta iyo shuruudaha laga caawiyo. Sidoo kale waxaa ku jira teedhooyinka la kiraysto Mina iyo Musdalifa ku yaala. Haddaba waxaa inta badan dhacda in ballamihii lala galay dadka xujayada ah ee in loo qabanayo dhammaan adeegyada aan soo sheegay in ay arrintaas ay suurtagal noqon weydo. Waxaa loo sheegaa in la dejinayo guryo ku dhegan xaramka ama Kacbada aad ugu dhow oo ilaa 1 kilomitir iyo bar u jirta lama dejiyo oo aad baa looga fogeeyaa. Dad waxaa jira waayeel ah oo xanuunsan, adeeg caafimaad intooda badan ma helaan. Waxaa laga yaabaa gaadiidka iyo transportationka in mataqaanaa ay waayaan baabuur qaada inta badan, taasoo keenaysa in macaash iyo faa'iido laga dhex raadiyo. Dhammaan haddii adeegyadan la qabto kharash baa ku baxaya. Kharashkuna markii hore ayuu ku jiray ballantii lala galay iyo qiimihii lagu heshiiyey. Hase yeeshee si macaash looga raadiyo waxaa dhacaysa in dhammaanba adeegyadaasi intooda muhiimka ah aysan helin. Anigoo aan isku qaadeen qaar ka mid a dadka xamalaadka ah ee dadka keena aad bay u fiican yihiin, laakiin intooda badan saasay u badan yihiin. Waxaa jiray muuqaal aan hadda ka hor ka sameeyey xajka iyo cumrada kaasoo ku saabsanaa in dowladda Sacuudi Carabiya ay fududeysay dalku galka xajka iyo cumrada, isla markaana uu qofku qaab online ku dalbanayo si iskiisna uu u soo xajin karo una soo cumreysan karo. Hase yeeshee dhibaatada waxay ka taagan tahay qofku markuu soo xajinayo, maadaama ay saxmaddu ay aad u badan tahay oo dad 1 milyan ama ka badan ay soo xajinayaan, waxaa yaraanaysa capacity-ga ama fursadda uu qofku u helayo inuu deegaan helo iyo inuu gaadiid uu ku safro helo. Taas ayaa keenaysa in loo baahdo dadka xamalaadka ah ama shirkadaha dadka soo xajiya
taas ayaa ku khasbaysa marka inuu shirkad uu ku biiro si uu soo xajiyo. haddii aad qorsheynayso in aad soo xajido sanadka soo socda ama sanadaha ka dambeeya, ama aad ka ajarsanayso waalidka ama dadka kale aad jeceshahay, waxaad u baahan tahay talooyin si aad uga badbaado dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka xujayda ah ee Ilaahay beedkiisa u aaday in loo dambi dhaafo. kow waa in aad contract ka qaadataa, caddayn aad ka qaadataa shirkadda ku kaxaynaysa ee qaabilsan inay xajka ku geyso. waa in dhammaanba adeegyada ay kuu qabanayso iyo kharashka ay kaa bixinayso caddayntiisii ay ku siisaa. 2, isla shirkaddaas dadka ay kaxaynayso waa inay yeeshaan dad guddi ah oo haddii adeegyadii loogu ballamay la qaban waayo, hadhow la raadiyo cid loo dacwoodo oo mataqaanaa ay dowladda Soomaaliya ay ka mid tahay ama maxkamadaha waddanka lagu dacwoodo. inkastoo ay jiraan musuqmaasuq, laakiin waa la dacweyn karaa maadaama aad caddaymo haysataan. maadaama shirkadahaas iyo maxkamadaadkaas ay shatiyo ka haystaan wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda Soomaaliya, isla markaana ay jiraan shuruudo ay laga maarmaan tahay inay fuliyaan si ay si sax ah ugu adeegaan dadka xujayda ee Ilaahay beedkiisa u aaday in loo soo dambi dhaafo. ugu dambeyntii daawad, haddii aad muuqaalkan ka heshay xog iyo talo ku anfacaysa, fadlan like, share, subscribe, noo share. Mahadsantahay.